xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa sheegay inay xasaanadii ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobadaareed oo ay hore u sheegeen inay xilka gudoomiyahana ka qaadeen. Gudoomiye Cabdixakiin ayaa u muuqday markii xilka laga qaadayay inuu dhexda u galay fal qorshaysan oo isaga lagu beegsanayay oo dadka maleegay ay ku jireen dad miisaan leh oo beeshiisa ah. xilkiisii waxa qabtay inay hayb dhow wadaagaan kan hadda la sheegay in laga qaadayna waxa la doonayaa in lagu fadhiisiyo xubin kale oo ka mid ah beeshiisa gaar ahaan jifidiisa hoose. gudoomiye Cabdixakiin waxa la sheegay inay mooshin ka keeneen 39 xildhibaan waxaana eedaha xilka qaadista loo cuskaday ugu weyneyd weerarkii lagu qaaday golaha baarlamaanka ee lagu laayay qaar ka mid ah staafkiisii. qodobka 55aad ee xawaasaad baysan u sheegay qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa amniga xarunta golaha. qodobkaas farqadiisa koowaad ma rabaa inaan si idin qeexo si aad isla fahmo. qodobka 55aad farqadiisa koowaad waxay u dhigan tahay nabadgelyada xarunta golaha iyo tan fadhiyada waxa uu xil saaran ciidanka nabadgelyada ee loo imaday. halkaasna waxa lagu soo eedeeyay xildhibaanka inuu ciidan abaabulona Malaysia keenay golaha oo uu qodobkan jibiyay. 39 xildhibaan ayaa gacanta u taagay xasaanadka qaadka xildhibaan Dhoobo waxaana markii ugu horeysay aan gacanta taagin gudoomiyaha golaha wakiilada ee xilligan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Mr. Jibriil ayaa caado ka dhigtay inuu golaha gacanta uga hortaago wax kasta oo la hor keeno waxaana uu gacanta u taagay dhammaan waxyaabihii baarlamaanku ansixiyay intii uu ku fadhiyay kursiga gudoonka golaha. la ansixiyo oo uu sidaa ku meel marmaanta. haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa Cabdixakiin haddii uu hore garab uga waayay beeshiisa guud oo xilkiisii la isu wada sharaxay maanta garab ma ka heli doonaa jifidiisa hoose oo ma ka joogsan doonaan inay xilka qabashadiisa u hanqaltaagaan mase sidii hore ayaa dhici doonta oo reer Xingalool ayaa garowe soo buux dhaafin doona iyaga oo doonaya inay ku fadhiistaan kursiga laga kiciyay Cabdixakiin Doobadaareed.